السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان وعانو وناكسن دمان أخيارتين داوتاي إذلكين به كسور دوادا مركلا إيو برامجكي تحانها كلانكا قربة جوكتا تضبات كيبا قراهانو كالات كداوتان تيفيغان عالميغا سومالي channel داوديال برامجكا كلانكا قربة جوكتا انتا بدان waxaynu ugu talagalnay mudooyinka ugu dambeeyay in aynu fursad ku siino Soomaalida qurba joogta gaar ahaan kuwooda qaba su'aalaha diiniga su'aalahaasi dabcan waxa ay yihiin kuwa markaasi ku salaysan hadba mowduucyada markaasi qofku uu isleeyahay waad u baahan tahay in lagaaga turcaan bixiyo waxaana sidoo kale to alaaba barnaamijka ka jawaaba su'aalahaasi khayr Allah siiyo marti igu ah waa Sheikh Bashiir Amaano kamida culimada diinka wadankan Sweden isla markaana ah gudoomiye ku xigeenka ururka islaamka ee wadankan Sweden daawadayaal toddobaadkan barnaamijka waxaanu idin haynaa su'aalo fara badan oo aad soo gudbiseen qaarkiin ina daawanaya halka aan filayo kuwa kale iyana inay ka faa'iidi doonaan maadaama ay yihiin su'aaluhu kuwa diiniya waxaan sidoo kale barnaamijka markaan su'aalaha ka gudubno kadib yana aanu idin soo gudbin doonaa waa isla darsigii diiniga qaybta tafsiirka quraanka kariimka oo barnaamijka tixana inooga ahaa hase yeeshee intaan u gudbin daawadayaal su'aalaha waxaan rabaa inaan mar labaad idin xasuusiyo cid alla cidii qabta barnaamijkan rabta inay ka qayb qaadato su'aal diiniya waxaad ku soo diri kartaan emailka ah kulanka qurbajoogta@hotmail.com ama qaybta Facebook adigoo markaasi garaacaya ama ciwaanka ku qoraya kulanka qurbajoogta kadib su'aashaada soo raaci hase yeeshee waxaynu ka codsanaynaa daawadayaal su'aasha in aad ka hormarisaan magaciina meesha aad joogtaan muhiim maaha dabcan laakiin haddaad isku dayi karto waa hagaag markana waxaan u gudbi doonaa qaybaha su'aalaha diiniga iyo waliba sheekha oo isagu markan dabcan ila fadhiya Sheikh Bashiir kulan wacan oo wanaagsan waxaan isleeyahay su'aasha ugu horeeyay soo gudbiyeen daawadayaashu ayaa rajayn doonaa bal inaan barnaamijka ku furo intii Ilaahay ka waafajiyana dabcan adiguna isku dayi doontid gabar Soomaaliyeed oo joogta dalka Belgium-ka ayaa su'aasha soo dirtay magaceeda dabcan soo ma sheegin waxa ay leedahay shiiqow waxaan deganahay dalka Belgium-ka hooyo ayaan ahay waxaana ahay xaas laakiin waxa jirtay in aan muddo 20 sano kadib aan wadankaygii booqday waxa la i tusay waraaq muddadaasi waxa la i tusay markaan tagay wadankaygii waraaq muddadaasi aan maqnaay oo qoray ninkayga waxaana uu ku qoray inuu ifuray ilaa iminkana waa isla joognaa saadaradeed maxay shariicadu ka tiri hadaan ku celsho su'aashu waxay tahay shiiqo waxaan joogaa dalka Belgium-ka hooyo ayaan ahay oo xaasa waxaa jirtay inaan tagay wadankaygii muddo 20 sano aan ka soo maqnaay markaan tagay waxaan la kulmay ama la i tusay waraaq uu qoray ninkayga waxa ku qoray inuu ifuray ولينا وان ودا جوجنا سادرادد شيقو شريعه maxay arrinkaas ka leedahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan filayaa runtii su'aal muhiim ah gabadhaas walaashay su'aalayso arinta ah furiinku arin ciyaar ma aha arinta guurkuna arin ciyaar ma aha marka waxa aad laga maarmaan oo ah su'aashaas runtii su'aalo badan baa ka dhalan kara oo loo baahan doona faahfaahin si loo ogaado waxa ka xaqa waxa ka runa waxaan ka runahayn wixii sharcigu ka leeyahay waxa laga maarmaan ah hadii ninkaas oo haweentiisa furay xaaskiisa furay dalqad uu furay sida waafaqsan shariicada islaamka dalqadaas way jiraysaa waxa laga xisaabinayaa dalqad inay tahay oo furiina inay tahay marka waxaan u baahanahay ninkii maadaama hadda ay leedahay waan wada joognaa muxuu ka leeyahay arinta dalqada furiinka goormu furiinka sameeyay hadduu furiinka sameeyay oo gabadha ay kala tageen oo si sharci u furay muxuu la noolyahay hadda oo mataqaana uu qaba mu soo ceshaday goormay ciidadii dhamaatay waxaasoo idil waa su'aalaha loo baahan doono marka nin haween furay oo dalqad ku furay inuu la noolaado la joogo shariicadu ma ogola haddii aysan dhicin in uu soo ceshaday oo dalqadii uu ka mataqaana ka soo noqday oo ka soo toobad keenay marka waxa loo baahan doonaa runtii in la su'aalo ninkaas dalqadaas waxay tahay wuxuu isagu ka qabo iyo ra'yigiisa iyo taladiisa aad bay sharciga muhiim u tahay in la ogaado
وهجاك waxaan u maleynayaa gabadhaasi Belgium ka soo dirtay su'aashaasi inay ka kaafiseen tashiiqu oo dabcan ka taabtay iyadoona muhiimadu ay tahay in lagu saleeyo in la weydiiyo isaga waxa arintaasi ka jira hagaag haddaan ka gudbo su'aasha labaad ee barnaamijkana waxa ay tahay sida tan shiiqow waxa aan dhaafay 50 sano waxaana aan doonayaa xajkan sanadkan inaan ka qayb qaato saa daraadeed محرم الآن ما حجين كرا ما دام دا سان دافي شيء قو كنت سنة أيام دافي بعدين كل شيء سؤاشة إن حج كسنة كان أيام ربا إن كقيب قاتو جود الشديسة سيدا الدراد محرم الآن حج كاسي ما يعن صحيح وسؤال مهم الرهانتي إن حجكو وركن يتير أدق أو تيرك إسلام ككمدة مهمة واجبكو أقفك مسلم كأو شروط دي سبوحية waxa diiniyan shariicada islaamku way u ogolaanaysaa in haweentaas culimadan way yiraahdeen madaahibta qaar ka midna way ogolaadeen in haweeneyda da'daas oo kala joogta in ay xajka aado oo maxram laan ay aado iyadoo raacaysa dad rafiiq oo aamina inay raacdo waxay la rafiiqaysaa oo la safraysaa ay u raacaysaa xajka dad aamina ay ku kalsoon tahay oo ay maartaan nafteeda iyo diinteeda uga aamin tahay arinta dawladda Sacuudiga laftirkeedu way ogolaatay oo way siiyaan fiisada way siiyaan cimrada iyo xajka way ogolaadaan qofkii da'daas oo muslina oo la socda dad aamina la socda way ogolaadaan laakiin taladeeda shakhsi ahaaneed ee qof ahaaneed yaan waxaan ku daraa runaantii in badan anigu waan xajiyay waan arkay xajka duruufta iyo xaaladda ka taagan waan arkay kulama taliyeen qof dumar ah inay kaliya tagto xajka ay tagto si kasto da'deedu ama ay u badan tahay ama caaqilad u tahay ama raashidad u tahay waxa ka sii daranba meesha dhibka ka jira qofku wuxuu u baahan yahay rafiiq xitaa rag ayaa u baahan rag la rafiiqa oo ay saaxiibo yihiin oo isla socdaan oo isweheshadaan oo iskaashadaan maxaa yeelay sababaha ugu badan arinta u leeyahay waxa weeye waaga hore dadka muslimiinta xajka waxay imaan jireen iyagoo cilmi leh iyagoo aqoon leh iyagoo edeb iyo anshax leh iyagoo akhlaaqda islaamka iyo diinta tixgelinaya iyagoo aan u tagayna xajka inay dambi kala soo korsadaan oo dib geystaan oo qofna aan dilayn qofna aan dhaawacayn qofna aan dhibaateynayn laakiin nasiib darro maanta ayaan darada taagan waxa weeye 80% wax ka badan dadka xajka yimaada waa dad jaahiliin weeye dad aan cilmi badan lahayn dad aan mataqaanaa aqoon badan lahayn waa dad mataqaanaa aan ilaalinayn nidaamka iyo anshaxan ilaalinayn xitaa dawladda Sacuudiga oo halgan weyn gashay xarameynka inay hagaajiso dib weyn bay kala kulantaa maxaa yeelay dadkaas nidaamka raaci mayaan haddii askarigu damco inuu nidaamiyo kala yiraahdo joogsan mayaan marka dib bay keentay marka kulama taliyeen qof inuu kaliya iska aado xajka oo aan dad rafiiq aysan la socon oo muhiim aysan la socon maxaa yeelay dhibka iyo shidada ka imaanaya meesha iyo aad u dhib badan waa meel aad u dhib badan oo qofku u baahan yahay inuu mataqaana helo taageero rasmi inuu helo marka diiniyan way aadi kartaa xajka way tagi kartaa fiisana way helaysaa dawladda Sacuudiga way ogolaatay laakiin tal ahaan waxaan ku dari lahaa inay dadka la rafiiqaysa yihiin dad aad ugu gargaari karo caawin kara inay yihiin hagaag waa tahay qaybihii su'aalaha inagoo ku guda jirna ayaan su'aasha saddexaadna haddaan soo gudbiyo waxa ay tahay sida tan waxayna ka timid gabar dabcan magac ma hayno waxaan deganahay tiri wadanka Italy shiiqo waan idin salaamaya adiga iyo daadiyaha barnaamijka waxaanan rabaa inaan ku weydiiyo su'aashan haddii ninkaygu igu yiraahdo inta aan kuugu qabay waan kuugu furay ma ka furanahay waxay tiri haddaan ku celsho shiiqow haddii ninkaygu igu yiraahdo intii aan kuugu qabay waan kuugu furay ma ka furanahay ninkaasi waa su'aal muhiim ruuxantii shariicada islaamku waxay jidaysay nidaam iyo qawaaniin iyo sharciyo iyo hab iyo asluub la raaco marka la isfurayo iyo marka la iskursanayo intaba waxayna diintu rabtaa in la raaco nidaamkaas oo aan lagu xadgudbin oo laga talaabin iyo diintu doonaysa furiinka waxay u qaybiyeen aimadu mid waafaqsan sunnada iyo diinta waafaqsan iyo mid aan waafaqsanayn sunnada iyo diinta aan waafaqsanayn marka at-talaaq al-bid'i iyo at-talaaq as-sunni baa loo kala bixiyay at-talaaq as-sunni wuu kooban yahay wuuna fudud yahay wax yar oo sahlan oo la baran karo la xafidi karo weeye talaaqa bidciga ciidaas oo ka batay faradiibuna ka batay wax la koobi karana ma aha maxaa yeelay wax haboon ma aha
sideedaba xaqu uu kooban yahay baadilka ayaa ciidda ka badan oo faradii ka batay marka nuurku waa mid kaliya dhulumaadku ciiddaasi ka bateen marka waxaan sheegayaa furiinka sunnada ee shariicada waafaqsan waxa ka soo haray wax khaldan oo adaab xumo iyo anshax xumo iyo diintu u aragta furiinka saxda waxa weeye mid laga fikray laga baaraandegay laga tashaday isla markaana markii uu ku qancay ninkii uu ku qancay ama labadoodiiba ay ku qanceen uu markaa go-aanka u gaaray in la kala tago marka waxaa dalqada lagu dhawaaqayaa haweenta oo daahira iyadoo xayd qabta ma haweenta oo daahira isla markaana daahir noqoshadaas aan la isugu tagin xaydkii ugu dambeeyay oo ay ka meeratay iyadoo aan la isu tagin oo la isnaagaysan haddii la isu tagay waa la sugayaa inta xayd kaga dhacayo haddana daahir ay ka noqonayso marka waxa weeye waxay dalqadu dhacaysaa haweentii oo daahir ah oo aan mataqaanaa xayd qabin isla markaana daahir noqoshadaas aan la isugu tagin labadii qof aysan isugu tagin markaas ayuu ninkii mataqaana ku dhawaaqayaa dalqadana wuxuu ku dhawaaqayaa hal dalqad keliya laba dalqadood ku dhawaaqi mayo saddex dalqadood ku dhawaaqi mayo intaan kugu qabay oo dhan baan kugu furay oran mayo 1000 dalqadood baan kugu furay oran mayo maxay tahay xiliyo xoore iyo waxaas iyo wax sheekada in la akhriyo looma baahna waxa uu leeyahay anigoo hebel ah xaaskayga hebel waxaan ku furay dalqad sida waafaqsan shariicada islaamka intaas ku dhamaatay waxa habkaas shariicada islaamka ay ku tala gashay markii lagu kala tago waxa aad iyo aad u sahlan oo xal loogu helayaa haddii ay wax dhacaan sidii lagu xalin lahaa hadday labadoodii ka qowmoodaan oo damcaan inay isu soo noqdaan way sahlan tahay jid baa loo hayaa muran la-aan iyo qiil la-aan haddii ay mataqaana sidaa ku dhamaystaan way kala tageen hadday waadanba damcaan inay isu soo noqdaan iyagoo 10 sano kala joogay oo isu soo noqon karaan weli maxay qiil in la dayo looma baahna waxa kaloo ka soo haray waa aflagaado waa anshax xumo waa akhlaaq xumo mararka qaarkoodna waa diin xumo inuu yiraahdo waxaan kugu furay 3 dalqadood oo aan kugu qabay waan kugu furay waa aan rajactu iyo waxba lahayn aan waxaas mataqaana miiran wax sax ma ah wax shariicada waafaqsan ma ah marka inuu yiraahdo waxaan kugu furay intii aan kugu qabay sax ma aha wax diinta waafaqsan ma aha furiinka diinta ku tala gashay ma aha hadduu dhaco maxaa la yeelayaa hadduu qofku ku dhawaaqo uu yiraahdo 3 dalqadood aan kugu qabay baan kugu furay hadduu yiraahdo ama intii aan kugu qabay baan kugu furay inuu yiraahdo hadalladaas aan habboonayn oo aan wanaagsanayn hadduu ku dhawaaqo maxaa la yeelayaa aymadu waxay yiraahdeen waxa laga soo qaadayaa furiin laakiin waxa la xisaabinayaa dalqad kaliya wala xisaabinayaa markuu yiraahdo intii dalqadood baan kugu qabay baan kugu furay wuxuu noqonayaa furiin laakiin waxa la xisaabinayaa dalqad kaliya inuu ahaa oo 3 dalqadood uusan ahayn maxaa yeelay waxa loo turjuntaa nin baa yiri nabiga markaan hadda ay leeyihiin inta qabay baan kugu furay sida runta waa cara iyo ciil iyo xanaaq iyo waxa ka keenaya laakiin markii uu miyirsado wuxuu leeyahay waxaan ka waday haweenta inaan kala tagin dalqad iyo waxbaan ka waday marka mushkiladu waa intaas nin baa ku yiri xaaskiisi 3 baad ku furan tahay marka waxay tiri haweentii nabiga u timid kaleey salaam maxaan ka yeelaa marka wuxuu ku yiri ninkii baa la su'aalayaa maxaad ka waday markaas yiri dalqad baan ka waday marka dalqad buu nabigu xisaabay kaleey salaam maxay yeelay carafta ya dhaqan waxay leeyahay inay yiraahdaan dalqad markay gabadha ku furayaan waxay oran jireen anti taaliq waad furan tahay markaas ku celinaya marka la leeyahay anti taaliq waad furan tahay haddana anti wa ta'kiid wa careysan marka furinkii iyo xoojinaya wuxuu leeyahay anti taaliq u furan tahay laakiin 3 baan kugu furay kama wado markii la yiri marna way soo gaabiyaan warka waxay anti taaliq 3 baad furan tahay marka warkii buu adkeynaya marka dalqad baa laga soo xisaabinaya waana furiin laakiin ma waafaqsana anshixi islaamku iyo diinta ku tala gashay shariicada ma waafaqsana waayahay su-aasha ay kasoo dirtay gabar Soomaaliyeed wadanka Talyaani ayay taasi ahayd su-aasha xigta iyadana waxa ay tahay sida tan shiqow anigoo muslima ma geli karaa kaniisad anoon cibaado u gelin indaan ku celsho shiqow anigoo muslim ah ma geli karaa goob kaniisada haddii aanan u gelinin wax cibaada waa su'aal muhiim ah nacam qofka muslimka uu geli karaa kaniisad uu geli karaa iyo meelaha diimaha kale isagoo u galaya maxay to inuu arko
inuu mataqaana qul siiru fil ard quraanka laftigiisa tilmaamayo dhulka ilaahay ku socda xitaa mararka qaar waxaan leeyahay ummadihii ilaahay ku beeniyay oo ku kufriyay dalkooda iyo dhulkooda taga oo arka marka qofka muslimka inuu tago oo dalxiis u tago oo mataqaana fikrad ka qaato oo arka waxay dadka kale meesha ku hayaan diintu ma diidan hadda iskuulada iyo dhulkan reer galbeedka iskuulada lagu dhigo waa qayb ka mid ah tacliinta in la tago oo la arko diimaha kale marka qofka muslimka uu tagi karaa kaniisad wuxuu tagi karaa dalxiis wuxuu tagi karaa aqoon kororsi wuxuu tagi karaa isagoo waayo aragnimo ka kororsanay iyo khibrad isagoo doonay inay ogaadaan dadkaas sida u dhaqmaan iyo diimahooda iyo waxay rumeynayaan cilmi baaris buu u tagi karaa waxyaalo kale oo fara badan buu shaqo u tagi karaa maxay ahayd hawlo badan baa loo tagi karaa oo shida aysan lahayn kaliya waxaa la ogolayn in markii la tago cibaadada diintaas iyo dadka le diintaas cibaadadoodii lagu sameeyo hadduu qofka muslimka kaniisad tago uu ku cibaadeysan karaa qofka muslimka kaniisad laakiin cibaadadu ku cibaadeysanay waa diintiisa islaamka anigoo salaad igu qabatay kaniisada salaadeydii islaamka waan ku tukan karaa oo maxay to inaan ku dhex tukado waxaa kaloo diinta ku soo arooday gaalada laftirkooda masaajidka inay ku tukadaan qayb ka mid ah oo wufuud u timid muslimiinta xitaa xilliga nabiga calayhi salaatu wasalaam qayb ka mid ah masaajidka intay tageen inay ku cibaadaystaan marka salawaad oo baryo iyo ducooyin baa la sameynaya marka muslimka ah hadduu xitaa kaniisada joogo oo uu damco cibaadadiisa islaamka inuu ku qabsado wax dhibo badan oo ku sugan lama arko laakiin waxaan la ogolayn diinta kale iyo cibaadadeedii inuu ku qabto lama ogola oo aad kala qayb gasho ducooyinkoodii iyo salaadahoodii iyo waxooda inaad kala qayb gasho diinteena ma ogola waxa way qofka muslimka ah waa inuu ka soocmo dadka kale diimaha kale nabiga calayhi salaatu wasalaam axaadiistiisa oo idil waxaad arkaysaa isagoo la khilaafa yahuud iyo nasaarada waxay sameeyaan mahana waxa kaloo sameyn jiray si qofka muslimka loo ogaado qof muslim inuu yahay shakhsiyadda qofka muslimka sida oo cadaato marka qaar way dhacdaa mujaamalaad dad muslimiin oo taga kaniisadaha iyo waxa taga marka wax cibaado ay sameeyaan la sameeya anaga diinteenu ma ogola in arinta la sameeyo iyagoo ina la sameeyaan markii masaajidada noogu yimaadaan oo masaajidada muslimiinta ay yimaadaan waxa aan sameynayna cibaado wayna la sameeyaan ama ducooyinka ama salaadaha wayna kala qayb qaataan iyagoo mataqaana mujaamalo u sameynay iyagoo xoogaa anaga nagu beerlaxsan nagu soo dhaweynaya marka iyagana mararka qaar waxay sugayaan markii aan tagnay kaniisadahooda inaan cibaadadoodii oo kale la sameeyno laakiin diinteena noo saamaxi mayso in arrintaas sameeyno marka diintoodii la sameyn mayno waxay sameysanayaan la sameyn mayno laakiin waa la tegi karaa waana la arki karaa waana laga qayb qaadan karaa وهجاك ولي برامجكي كلن كقرب شوك تاين ضاود يالكو جدا جرنا يولي بقايبي سؤالها الدينية أو الشيخ وخير الله سيو ولي أن أنتي أن كرانكي سيبنا كوافتشي وكتشواب يسؤال حكتا أن حدان سوقد بيما سؤال الشناد وحا أي تاسيدة تنشيقو أن وحن هاي هوية صوماليات إسلام مركانا أن وحن ربا سؤال إنا كويديو مدة 3 سنة أو إسكو حكتا أيانا سي كاملة أسو من soomkii waajibka ahay waxaana sabab u ahay ayay tiri uur aan lahay ama caruur aan nuujinay afwan waxay meeshaas ku tiri caruur ayaan nuujinay sida ayaana keentay inaan xiriir u soomi waay 3 sano marka sheeqow sidee ayaan u qaleynayaa ramadaankaasi hadaan ku celsho waxay tiri hooyo Soomaaliyeed sheeqow muddo 3 sano oo xiriir ayaan si kaamila ama si xiriir aanan u soomin soon 3 sano isku xigta waxaana sabab u ahayd caruur ayaa nuujinay marka sideen hadda u qaleynaya soomkaasi maxaase laga rabo soonka ilaahay subhanahu wa ta'ala ku fardeeyo qofka muslimka ee xaadir bisha Ramadaan inuu soomo waxa gabadha u banaan laba ra'yi bay culimada iyo madaahibtu ka yiraahdeen hooyada ilmaha nuujinaysa hooyada uur kale xaamilada ah qofka aan soomi karin oo ama hadduu soonku dhib ku yahay waa qof soomi kara laakiin soonku uu dhib ku yahay qofkaas culimadu waxay ka yiraahdeen sida tan laba ra'yi iyo madaahibta laba fikradood bay ku kala duwanaan labada baan sheegaya hadhow anna midaan islaahay way u haboon tahay baan sheegi doonaa waxa weeye labada fikradood mid waxa weeye soonku waa qaleynaysa gabadhii way afuraysaa markii ay ilmaha nuujinayso iyo markay xaamilada tahay bilihii ugu dambeeyay ay tahay way afuraysaa laakiin soonka way qaleynaysaa waa laga doonayaa marka maalmihii ay afurtay bay xagga ka soomaysaa haday 12 maalmood lagu lahaa
toban maalmood bay soomaysaa inta soonka kale uusan soo gelin. marka bishii soonfur iyo bilihii kusii xigay yay soomaysaa. hadday doonto maalmaha ha qaybiso, hadday doonto ha ka dhigato bishiiba xoogaa, marka laakiin maalmihii waa laga rabaa inay soonto. marka ilaa sanadka kale uusan kusoo gelin waa inay soonto. haddii sanadka kale kusoo galay weli maalmihii waa lagu leeyahay, waa inay xisaabsato, soonkii waa laga doonayaa. marka waxay u qalayn kartaa hadday rabto madhabkaasi fikradaas inay qaadato, inta maalmooda lagu leeyahay xisaabinaysa. imisa lagu leeyahay, waxaa lagu leeyahay 30 maalmood ama 40 maalmood. okay, waa inaan soomo marka bil walba 5 oo kale inaan soomo inta ay ka dhamaanayso. sidaas oo kale way u qoondaysan kartaa, way inoo qorsheysan kartaa. ra'yi waa kaas. ra'yiga labaad wuxuu leeyahay gabadha soonkii waa laga cafiyay, diintu way ka cafiday, waxaa laga doonayaa fidya laga doonayaa. marka soon lagama rabo ee fidya laga doonayaa. ra'yiga marka muxuu leeyahay, ra'yiga hore madaahibta islaamka u badan. ra'yigan dambe Cabdullah ibn Abbas iyo asxaabta qaar kamid ah la qabay iyo madaahibta aqwaal kamid ah. marka ra'yigan labaad wuxuu leeyahay gabadha ay soonku dhib u ku yahay ilma ay nuujinaysa awgeed ama uurka ay leedahay awgeed, waxa weeye way afuraysaa. maalmaha soonka lagu leeyahayna fidya bixinaysaa. fidyaduna waxa weeye qof miskiina oo sooman inay afurso oo ay siiso cunto ku filan oo beri ku soomi karo, maalinta xigta ku soomi karo inay siiso. marka fidya siinaysaa, halkaasana ilaahay uga cafiyay, wax laga doonayana ma jirto. ra'yigaasna waa ra'yi kale oo jira oo rasmi. dadka jooga dhulkan gaalada annagu waxaan u fadwoonaa ra'yigaas u fadwoonaa oo ah mataqaanaa soomin afur markii ilmaha aad nuujinayso ama ilmo aad xaamilo tahay bilihii ugu dambeeyay, dabadeedna fidyo bixi. dadka masaakiinta ana intaas khayr ugu jira oo faa'iido ugu jirta. ra'yigaasna waa ra'yigan kula talin lahaa hadday dhulkan reer galbeedka ku nooshahay. waayahay, su-aasha ugu dambaysa barnaamijkana waxa ay tahay sida tan. dabcan su-aal jamaca ayaa loo soo diray, qof shakhsi ahaan u weydiiyey ma ahayn, laakiin qof ayaa soo diray, magacna ma laha. wuxuu yidhi sheekhow, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dadka saambowga iskula nool isla markaana caruurta ku dhala, caruurtaasi shareecada islaamka ma ku dhasheen? dadka saambowga iskula nool, dabcan saambow waad fahmi kartaan qurbaha ayuu ka jira. dadkaasi caruurta ay dhalaan shareecada miyay ku dhasheen? sambow kelmadda la yiraahdo afsuudishka waxay wada noolaasho. sambuende baa la yiraahdaa. sambuende marka loo soo gaabiyaa sambow baa la yiraahdaa. waxa weeye wada noolaasho. waxa weeye dadka wadamadan aan joogin reer Suudaan waxay ahaayeen dad nasaara bay ahaayeen, krishtaana 1000 sano ugu dambeeyay. 1000 sano ka hor waxay wataniyiin bay ahaayeen, waxay caabudi jireen sanamyo iyo waxyaalo kale ay caabudi jireen. laakiin 1000 sano ugu dambeeyay waxay dad nasaara bay ahaayeen. qisiis reer Almaaniya Jarmalka ka yimid yaa nasaara ka dhigay. marka dad ahlu diin ay ahaayeen oo ahlu kitaab ah oo nasaara bay ahaayeen. marka in badan oo kamida diintii way ka sii tagayaan oo ama diintii baan u cunameyn oo ilbaxnimadoodii xadaaradoodii la qabsan weyday sida iyagu arkaan, marka waa laga sii tagayaa. waxyaalaha marka sii lumaya waxaa kamid ah guurkii shareecada ahaa oo la isguursan jiray baa kamid ah, iyo nikaax iyo wixii waxa loo arkaa wax badownimo waxaan haboonayn, dhib ay kala kulmeen, marka way ka takhaluseen, way ka tala baxeen. waxa marka ay leeyihiin hababkay u wada dhaqmaan waxaa kamid ah guur rasmi ah oo sidii muslimiintu kale isu guursanayeen isu guursadaan marka ama kaniisada ka dhaco. marna waxay sameeyeen guur ay isguursanayaan si rasmi ah oo ka dhacay xafiiskii dawladda hoose xafiiskeeda ka dhacaya oo dawladdu isu nikaaxinayso. taana waa nikaax rasmi guur ah. laakiin waxa badan oo aad u fara badan wax marka hore ay sameeyaan oo dhalinyarada oo mataqaanay la yiraahdo wiil iyo gabar saaxiiba oo wada degan oo kulma, waa boyfriend iyo girlfriend waxay lahaayeen, gabar iyo wiil saaxiiba oo kulma oo isu taga oo isla booda oo isla ciyaar meel walba isla mara. heer waxay gaarayaan marka qofba gurigiisa ku nool yahay. marba waxa la gaarayaa marka hadhowto in la isu soo guuro oo aqal isla dego. marka waxa la yiraahdaa samboende waa marka wada noolaansho. waa laba qof wada isma nikaxsana ismana qabaan, sharcigooda iyo diintoodii waa ka xaraan, arrintaas sax ma aha, laakiin waa laga tagay. marka waa la wada nool yahay, labadoodii baa wada nool oo mataqaanaa nin iyo xaaskii sidiisii bay u dhaqmayaan sidii reer oo kale weeye rasmi ah. sharciga Suudaan laba qof oo isqabta ma aha, xuquuqdii reerka isqaba ma lahayn, sida xuquuqda dhaxalka uu kamid yahay iyo waxa la midka uu kamid yahay ma laha. marka sambow baa la yiraahdaa. wada noolaanshahaas marka ay wada nool yihiin ilmaha ku dhasha, qaar baa ilmo ugu dhasha, ilmihii markay ku dhashaan ay wada nool yihiin
waaga dambe hadday doonaan way isgursadaan way isnikaxsadaan hadday doonaan isma nikaxsan sidaasay noloshooda ku dhamaystaan kuwa garabka bidix xisbiyada garabka bidix ama dadka shuuciyada iyo waxaas aaminsan waxay u arkaan in sidaa nolosha lagu dhamaysto guurka waxay u arkaan khalad inuu yahay inuu dhaqan xun yahay diimaha iyo waxaana way kasoo horjeedaan sidoodaba kuwa garabka midig waxay jecel yihiin guurka waxay leeyihiin waa dhaqan xafidaya hidihii iyo dhaqankii bulshada wadanka ku nool marka waa in la xafido marka sambo ayaan darada dhacday waxa weeye marka arrintaas dadkan diimaha kala haysta ama dadkan nasaarada oo diintoodii ka tegay waxaas inay ku dhaqmaan waa waxa mataqaanaa caadi ay noqotay oo dabiici ay noqotay laakiin waxa ayaan daraa dad muslimiina inay sidaa u dhaqmaan oo sameeyaan wax la yiraahdo sambo wende heerkii aadka u fogaa lama gaarin oo hadda laba qof oo muslimiina ama Soomaaliya hadda iyagoon isnikaxsanin intay isla degaan inay isla noolaadaan in badan ma dhicin laakiin inay nagu soo socoto waan isleeyahay ilaahay naga badbaadiyo iyo fadeexooyinka iyo dhibaatooyinka soo socday ka mid ah oo rasmiga laakiin haddeer waxaa lagu sameynayaa sambugaas iyo wada noolaanshahaas waxaa lagu sameynayaa hab xeelada oo iyagoo arkaan xeelad inay tahay aysan xaaraan ahayn وحيلد بالله حرام ما لكن شريعة الإسلام كوانا حيلد وأنا حرام سيد الله أركو من شريعة وأركو علماء أدنى وجهد لنا أرنتاس سنة بدن إن بدن وانكهل لين حيتاي وحل الدنيا إن اللي وسط برص حجر دقالة أتكوهشد با وحل الله سمينيا أرنتاس مركا حد جد بوين أو شريعة دينتين ولا سمينيا مت شرفات يقيمه يسمى لمن المسلمين ولا سمينيا مت قف أهانات حتى أو شخصية قف كذا وعمل سنة ولا سمينيا وواحد dadka aan shaqaysan ba inta badan ku dhaqma ama dad shaqaysto iimaan kala ba inta badan sameeya arinta waxay tahay markii reerku wada nool yahay aabaha iyo hooyada markii wada reer isqaba oo wada nool ay yihiin waxa la siiya dadkii shaqaystana lacagtooda ay shaqaystaan bay ku nool yihiin qofkan shaqaysana waxa la siiya lacag cayra la siiya lacagta cayrta la siiyo waa lacag nolosha guriga la qiimeeyo reerka waa kirada guriga ku baxda waxa laalay waxa nolosha reerka ku baxda intay tahay baa la qiyaasaya iyo xoogaa lacag oo soo harta oo jeebkooda baa la isugu dara intaas la siiya haddii reerku wada degan yihiin waxa la siiya lacag baa la siiya haddii ay haweentu hooyadu kaliga tahay aabuhuna kali yahay oo labadooda ay kala degan yihiinna qof walba lacag ba goonidiisa loo siinaya marka lacagtii marka la isku daro hadhow way ka badanaysaa intii marka hadday isla joogaan lacag badan nooma soo harayso weeye marka waa la kala degaya waxa leeyahay labadooda isma qabno ma taqaanaa isna guri degaya la siinaya iyadana guri baa la siinaya ay degaysa marka muxuu sameynayaa gurigii la siiyay iyada ama isaga bay wada degayaan wada nool yihiin guriga kale waa la kireynaya lacagta laga helo guriga kale marka jeebka la rabo in lagu shubto qof walbana lacagtiisa iyo garaamihiisa goonaa loo siiyay halkaan xoogaa lacaga ka soo baxaysa lacagaha soo baxay ba ujeedadu ay tahay jeebka in lagu shubto inta badan Soomaaliya u diraan anigu waxyaalahan aaminsanahay i'tiqaadkayga ka mid tahay intay lacagta urursadaan Soomaaliya la diraa guri lagu dhisaa guriyahaas madaafiic baa ku dhacda ilaahay baa jabiyay oo ka khariman iyo xaaraan iyo baqti iyo halkaas lagu sameeynaya marka dadkeena waxay la degla yihiin oo dalkeena u degla yahay oo u rogmayo oo u kharimayso lacagta xaaraanta ah yaa gasha iyo dadkeena la siinaya gurihiina lagu dhisay dhulkeena lagu dhisay shirkadka lagu dhisay muasasadaha aad lagu dhisay waxaan isleeyahay waxaas dhibaatada noo keenay oo dalkii la degla yahay qaybooyin ka tahay baan aaminsanahay asbaabta loo leeyahay sambo baan sameynaa waxa ceebaha ka yimaada barnaamijka haduu waqti u hayo waxaan sheegi lahaa waxyaalo mataqaan dhibaatooyinka ay u geystaan bulshada caqliga insaanka aan gali karin waxa kamid ah matalan ilmaha dhibaatada ku haya ninka guriga in lagu arko lama ogola sharciga waa nin dhoomashaal guriga ku yimaada wuxuu iimaanaya hab qarsoodi oo iimaanaya maxaa yeelay haduu la dego guriga oo reerku la nool yihiin laba qof oo wada degan weeye marka lacagta in la siiyo lama ogola marka wuxuu ku iimaanaya guriga dhoomashaal ciyaalka iyo caruurta guriga wuxuu ugu sheekeynaya hadii cayrtu idin weydiiso ama dawladdu aabba gurigan ma degana dhaha oo waxa tiraahdaa aabba gurigan ma degana ilmihii waa been lagu abuuraya iyagoo og aabihii inuu degan yahay cuqdad ba halka ka qaadayaan cudur iyo marad bay noqonaysaa beenta inay bartaan khiyaanada inay bartaan xogaayeen markay weynaadaan way ogaanayaan qaar baa nagu yiraahdo markuu ilmihii ba hadhow xatooyo bilaabay inay wax xadaan wax dhacaan markaas waalidka canaananaya markaas ilaa adigu waxbaad xadaa tuug baa tahay waxaan xaraan weeye adba xaraan baad cuntaa waan aragnay waana la kulanay ilmihii ku oranay waalidku adba xaraan baad cuntaa khiyaanada cuntaa waxa marka dhibaatada keentay fiir heerkii bay burburinaysaa wax kasta diintu xaraantinimaysay waa wax insaanka dhibaateynaya dhaawacay wax loo xaraantinimeeyo wax khabiith ah wax xun
marka ilmihii beenti baa la barayaa, khiyaanadii baa la barayaa, qaar baa habeen barka guriga ka booda oo ka baqay ina cayrtii wixii u timid oo balkoonka ka baxa, balkoniga ka baxaya. Marka waa mushkilad bay keentay. Hadhowto dhibaatada kasii weyn maxay tahay? Hooyadii baa uur yeelanaysa, ilmihii bay dhashay, markaasaa leeyahay ilmahan yaa dhalay, nin saaxiiba iga dhalay bay leedahay oo saambogayga ah. marka ninka marka xaraan baad ku wada degantihiin, xaraan baan ku wada degannahay, nin saaxiibaan leeyahay ilmaha iga dhaldhala, habeenadii buu yimaadaa. ninka ma sheegi karto ninkii inuu yahay, ma sheegi karto laana ninkii lacag baa la isku siiyaa, waa dhibaato. marka maxaa la diiwaan gelinayaa? waxaa la diiwaan gelinayaa ilmahaas ilmo garaca inuu yahay, ilmo wacala inuu yahay, ilmo bilaa sharci ku dhashay inuu yahay, diiwaanka dawladda isu dhan ugu jira. iyadaa la weydiinayaa ninka magaciisa sheeg. ilmuhu markuu aabba leeyahay hooyada qaba, magaca si automatic loogu qoraa. laakiin markuusan ahayn hooyada la su'aalayaa ilmahan magacii, marka ninkay doontay sheegaysaa magaciisa waa loogu qoraya. hadday aabbaha sheegto waa lagu qoraya, haddaysan sheeginna lagu qori maayo. waxaad arki doontaa ilmo Soomaaliyeed oo reer Soomaaliyeed oo magacyo kala duwan leh, qaarna hooyadii baa loogu magac daraya, qaarna aabbihii, maxaa yeelay mashaakilkan oo kale ka taagan. marka dhibaatay noqotay, dhibaato weyn bay noqotay. ilmo yar yaraan waxaad leedahay Soomaaliya magacaa, qaar ba intay shahin waaya gaaladii u sheegay, Swedishka u sheegay, waxaa leeyahay magacaa, markaas magaca Soomaaligan ku sheegay mise magaca Swedishkan ku sheegay. mushkilad meesha leeg. marka dhibaatay ku noqonaysaa rasmiya ilmihii iyo dhibaatadii. ilmihiina waxaa la diiwaan geliyay inay aysan sharci darro ku dhasheen, ay garacyo ku dhasheen. dhibaatada kale oo ka imaanaysa diiniyan, gabdhahaas fadeexooyinka dhacday ka mid tahay oo fiicanta bulshada Soomaaliyeed inay ogaadaan. maxay ahayto oo xijaaban oo ilmaha uurkaas leh, ilmaha dhasha koox bay dhashaa. marka nin cayrta ka shaqeeya isu dhasha yaa gacan hayo u ah oo mataqaana qofka mas-uulka ka ah oo lacagta siiya. marka wuu la kulmaa reeraha, qof walba reeruhu mas-uulka yahay wuu la kulmaa oo xaaladooda ogaadaa. marka gabar noocaas uu la kulmay, marka wuxuu doonaya inuu salaamo, gacanta usoo taagay. markaasay tiri ku salaami mayo, gacanta kaa qaadi mayo, maxaa yeele waa xaaraan. markaasu wuxuu yidhi gacanta in la iska salaamo waa xaaraan, laakiin hoosta in la iska taabto xaaraan maaha. macnaha waxyaalaha waxay ka mid tahay jeejeeska ka yimid. macnaha gacanta inaan kaa taabto kaa salaamo xaaraan weeye, laakiin hoosta wuxuu yidhi waa xalaal. ilaa ilmihii waxay sanad walba waxay u keentaa, ilmahay u keentaa. ilmaha yaa kaa dhalay, nin baa kaa dhalay. shareecada ma isqabtaan, ma isma qabno. hadda shareecadiina islaamka see kuuga ogolaatay marka in hoosta lagaa taabto? mushkilad inta la eg. marka waxay noqotay fadeexay noqotay. wadanka Ingiriiska iyo wadanka Suudaan laba tiro koob baan ka hayaa. waxaa diiwaan gashan inta ilmood oo Soomaaliya oo dhashay oo bila sharciga ku dhashay. marka hadda reer Suudaan markaan la doodaynaa niraahna anagu dad muslimiin ah, dhaqanka iyo diinta ku dhaqan, reer Suudaan 50% ilmaha wax ka badan waxay ku dhashaan sharci darro, guur la'aan. hadda taaleeyo Soomaalida 43% waxay ku dhasheen guur la'aan. Soomaalida iyo Swedishka isku mid. mushkilad inteeda leeg. marka muslimnimadii iyo Soomaalinimadii aad bay u dhaawacantay, dhibaato weyn baa ku dhacday. dad baa ku xanuunsaday. gabar Soomaaliyeed turjubaanada waxay ku xanuunsatay isbitaalka dhalaanka, hooyada iyo ilmaha bay ka shaqaysaa, turjubaanad bay ka tahay. kuwa maxay to gabdhaha caafimaadka isu dhishka ah oo xamanayo waalidiinta hooyooyinka Soomaalida bay ku xanuunsatay. markay yimaadaan waxay leeyihiin waxaa imaanaya kuwii garacyada dhali jiray, diintana sheeganayay. Soomaalidii diintana sheeganayay, garacyadana dhali jiray baa imaanaya. gabadhay ku dhaga hadlay ilaa ay xanuunsatay oo noo timid oo ila tashto. marka arrinta la leeyahay waan isla noolnahay oo mataqaana dhaqaale lagu helaya, wax iimaan darra, waa wax diin darra, waa wax akhlaaq xumaa, waa wax mataqaana dhaawacaya bulshada Soomaaliyeed, mujtamaca Soomaaliyeed. waxaan la sii gubanayno, waxa dalkeena u degilaayahay, waxa dadkeena u degilaayihiin weeye. dadka gudaha jooga Soomaaliya oo dadka dibadaha jooga lacagaha ka doonayo, lacagaha ka dalbayo, ku haya lacagaha noo soo dirnaa ogaadeen naar bay cunayaan. inama yakuluna fi butunihim naaran wasayaslawna saciiran. ilaahay quraan ku leeyahay subxaanahu wa tacaala, naar markaad cunto naar aakhirina waad ku gubanaysaa. waa inaad tiraahdo qofka xoolaha iyo dhaqaaluhu kusoo diray dhaqaale xalaal ma yahay, xagee ka yimid, xagee ka keentay, waa in la ogaado. haddii kale waxa dhibaatada noo geystay ilmaheennina la waasheen, lana kharimeen. anigu waxaan aaminsanahay dhaawac weyn ba arrintaa noo geysatay. aad iyo aad baan uga hadalnay meelo fara badan iyo waqtiyo fara badan, laakiin nasiib darra dad baa weli kusii socda oo weli u arka mataqaana xoogaaga shilmada inuu urursado inay ka muhiimsan tahay diinta. qur-aankana waad arkaysaa dadka diintooda ku iibsanaya bithamanin bakhs, mataqaana waxaan qiimo lahayn ku iibsanaya diintooda. waxaas waa shilmaan xoogaaya.
hadduu qofku shaqaysto lacagtu helayaa ka badan lacag xoogiisa xalaasha ilaahana u barakeynayo subxaana watacaala marka waxaan ku oran lahaa wax la yahay sambo iyo wada noolaasho iyo xaaraan hala ilaawo xalaasha loo soo jeesto jazakallahu khayran sheekha su'aashaasi waxaan isleeyahay inuu si fiican u fokolar gareeyay waan isleeyahay daawadayaal intiina qurba jooga waa dareemi kartaan xaaladda iyo weliba wadciga arrintaasi ay saameynta ku leedahay hase yeeshee waxaan rajayn doonaa ilaahay inaga wada dhigo kuwii iyaguna ka waantooba waxyaabaha diintooda aan ku salaysnayn su-aashaasi dabcan sheekhu uu ku dheeraadana waxa ay gunaanad u ahayd barnaamijkii kulanka qurba joogta qaybtii su-aalaha diiniga waxaase daawadayaal mar labaad aanu xasuusinaynaa haddii aad doonaysaan ama su-aal diiniya aad qabtaan oo aad noo soo diri kartaan inkastoo aynu jecelnaha su-aalaha inaad kuwa aan isdhihi karno muhiimka ayay markaasi u leeyihiin daawadayaasha ama qofka markaas soo diraya in aad soo dirtaan qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan daawadayaal sidoo kaleeto idinkugu soo gudbin doonaa su-aalo dhowra aad soo dirteen oo waqtigu inoo masaabixi waayey hase yeeshee haddii ayba ogolaado aan rajayn doono in aad waqtiyo aan dheereen aad daawo doontaan daawadayaal qaybtii su-aalaha barnaamijka inta ayaan ku hakin doonaa hase yeeshee markaan waxaan idinku duwayaa qaybta ugu dambeysa barnaamijka waa isla darsigii diiniga waa tafsiirka qur-aanka kariimka imtixaanaha inooga ahaa isla sheekh bashiir ayaa soo jeedin doona idinkuna daawasho wacan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo jirnay tafsiir quraan kariimka insha Allah taala waxaan ka bilaabi doonaa aayada 219 ee suurat al-baqara aayada 219 ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda magaalada madiina kusoo degtay suurat al-baqara axkaamtii baana loo kasoo sheekeynayay ilaahay wuxuu leeyahay isagoo rasuulka maxamed allah alayhi salawaatullahi wasalaamu calayhi yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilkhamri khamraday ku su-aalayaan walmaysiri khamaarkay ku su-aalayaan qul waxaad tidhahdaa rasuulow fiihimaa labadoodaas ithmun dembi baa ku sugan dembigaasoo kabiirun weyn wa manaaficu nacfibu wuxuu u yahay linnaasi dadka laakiin wa ithmuhumaa dembigooda akbaru ka weyn min nafcihimaa waxtarkooda wayas'aluunaka waxay kaloo ku su-aalayaan maadaa yunfiquuna waxay bixiyaan bay ku su-aalayaan qul waxaad tidhahdaa rasuulow alcafwa dheeraadka iyo siyaadadaad bixinaysaan kadalika sidaasaa yubayinu allahu ilaahay wuxuu idinku cadaynayaa lakum idinka al aayaati aayaadka idinku cadaynayaa lacalakum waxaad mudantihiin tatafakkaruuna inaad ka fakertaan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy fi dunyaa adduunyada iyo walaakhirata aakhiraba wayas'aluunaka waxay ku su-aalayaan can ilyataama agoontay ku weydiinayaan qul waxaad tidhahdaa rasuulow islaaxun wanaajin lahum iyaga la wanaajiyaa khayrun u khayr badan wain tukhaalituuhum inaad wax ku darsataan baa idin khayr badan oo wain tukhaalituuhum haddaad wax ku darsataan oo aad wax isku dhex darsataanna fa ikhwaanukum walaalihin weeye wallaahu ilaah baa yaclamu ogaan badan almufsida ninka mufsidka wax fasaadinaya wax kharibaya من المصلح كم حاجاتنا إله بكلوج ولو شاء الله إله دون لها لعنتكم وإذا مشقين لها وإذا دب لها إن الله إله عزيز إله عزي يشرف له حكيم إله حكمة بدن ويا إله الله سبحانه وتعالى سورة مقالة المدينة كسودكتي أحكامتي شرعينتي يتشدينتي حلالينتي حارانتي نمينتي بمقالة المدينة كسودكتي محيا لي مسلمينتي انتي مقالة مكتشوغين وحال ديسي عقيدة دي إيمان كودا waxaa la diyaarinaya dadnimadooda la diyaarinaya waxaa la diyaarinaya inay yihiin dad ilaahay subxaana wa tacaala u hogaansamayo aqbalaya marka ilaaha subxaana wa tacaala qaadirka ay u hogaansamayaan yaa waxaa la doonaya in loo tarbiyo culimadeena waxay yidhaahdeen aayadihii xalaasha iyo xaaraanta magaalada maka laguma soo dejin maxaa yeelay dadku uma carbisnayn inay ilaahay subxaana wa tacaala warkiisa dhageystaan oo ay rasuulka warkiisa raacaan maadaama aysan aqoon u lahayn ilaahay subxaana wa tacaala marka qur-aanka kariimka ah wuxuu magaalada maka suuradaha kusoo degay xoogga uu saaray inuu dhiso dadka caqiidadooda iyo iimaankooda iimaankii caqiidadii marka la dhisay oo qofkii la diyaariyey oo ilaahay la baray subxaana wa tacaala oo rasuulkiisa u bartay oo diinta qiimaheeda u bartay aakhiriya adduun uu kala gartay markaasaa axkaamtii lagu soo dejiyey oo la yidhi waxaana waa xalaal waxaana waa xaaraan markaa isagoo maqlay magaalada maka laguma xaaraantinimeen khamrada waxay ahayd xalaal bay ahayd bilowgii iyo sabankii ugu horreeyay islaamka magaalada madiina lagu xaaraantinimeyn doonaa
laakiin waxa aad la yaabo leh inta aan la xaaraantimeyn khamriga oo aan laga dhigan inay xaaraan tahay saddex aayadood baa ilaahay subxaanahu wa tacaala khamriga kusoo dejiyay qur-aanka kariimka oo loogu gogol xaarayo khamriga marka koowaad lama oran waa xaaraan laakiin waxaa loo sheegay in ay darar iyo dhib weyn insaanka ugu jiro dembi badan inuu insaanka uu ka helayo in dhibaato weyn ay kasoo gaarayso marka marxaladii ku xigtay markii saddexaad baa la xaaraantinimeeyey laakiin labadii marxaladooda ka horeeyay waxaa la sheegay dhibkeeda marka naftii baa loo diyaarinayaa Umar ibn Khattab oo nin aad u fahmad badan oo aad u garaad badan oo aad u caqli badan waxa uu yiri aayadii koobaad ee khamradu markay soo degtay iyo wuxuu yiri wala khamri waxba haysta buu yiri dadka khamriga cabana waxba haysta markaas maxaa dhacay waxaan u jeedaa buu yiri inuu Ilaahay u socdo inuu xaaraantinimeeyo aayadii koowaad uu ka dareemay oo ka gartay in loo soo socdo khamri aayadii labaad markay soo degtay iyo wuxuu yiri tanna waxay sii xoojisay aragtidii hore oo aan qabay tii saddexaadna waxay timid way xaaraantinimeys marka علماء حكم دم بيكرسن علم اللي يراه فقه أصول فقه أصول فقه قواعد فقه قاعدة دم بالجسو دتيو وحي دين تلمام يسا مركه وحل ريبي أما الحرام تنمينيو إن يسان هبونين مركلي إن لسمايو أيو باهنتي جوجل حار أرار إنه باهنتي جوجل دقي إنه باهنتي للديارية ماشي هرتا قفكي للسيقن عيو يستقون نفتي وديارة مركا لسمايو كلي حلاشي حرام تماها وأوحول بقى حتى حديث صحيح رسولك محمد كسوغنا صلى الله عليه وسلم عليه وحي أصحابته الليهين رسولك إلهي ونلد دونين جري وعدك رسولك حل والبا أصحابته ما وعدي جري كان يتحيننا وحنا لك هذه جري فرصة غالية ونلك هذه جري حل قونية يونلد دونين جري مركونا وعديه مركا نفتي ولي مركز توعد دياره معها إنسانكم مركز توعد دياره معها مركا نفتي ما انتظر إن لو وعديه حتى دينته مربطه كان رسولك عليه الصلاة والسلام أصحابته وحول بيجن جري حلي وعدك ديار ويه مركا سوسة من جري مركا إن واحد كستا للدياريو وقتك كهبوني هنا اللي سميه وأصوش الدين تاني قواعد أمهم سنة الدين إلهي يقول لي يسألونك عن الخمر والميسر خمر هذا هي خمار كيك سؤالي عن دتك بقى سؤاله خمر هذا بالكورن خمار كان كورن خمر اللغة العربية وحل يري هذا الخمر والدبول والدهار واحد دبولو دهاري او كله marka waxay yiraahdeen khamrada waxa khamri loo yiri laanaha takhmur al-aql aqliga dabooleysa aqliga bay qarinaysa aqliga bay dahaaraysa saas loo yiri laakiin khamri qaa'idada shariicada islaamka waxay u taqaanaa waxa la yiri al-khamru kullu ma khamara al-aql khamrigu waa waxa laali wixii aqliga daboola oo dahaara aqliga dooriya maskaxda waala oo wareeriya waxa la khamri nooc doonta ha noqoto kulligeed waa xaraan marka khamriga ya xaalkiisa ay ku su'aalayaan dad waxa jira khamriga luqadaha hadda luqada carabiga markay khamri kelmada la khamri turjumayaan ingiriiska ku turjumayaan wine bay ku turjumayaan wine khamri baa lagu turjumaya ama vin isudishka lagu yiraahdo vin ama wine waxa lagu turjumaya khamri khamrooyinka marka badan oo magacyo kale loo bixiyay magacyo kale u bixiyaan marka iyagoo dadka ku khaldaya iyo waxay ka dhigeen inaysan khamri ahayn markaas waxay leeyihiin khamriga ilaahay xaaraantinimay waa midan kaliya waxaan waxba kama jiraan wax allaale wixii aqliga dooriyo maanka dooriyo maskaxda dooriyo waa xaraan way sharciyada islaamka waxa kale oo jirta khamri markii ay badan tahay aqliga doorinaysa oo mataqaana khamro noqonaysa markii ay yar tahay qofka aysan aqligeeda doorinayn marka khamradaas ma xaraan baa mise waa xalaal waa xaraan way sharciyada islaamka walidaalika culimadana qawaacid waxay ku yiraahdeen ma askara kathiruhu fa qalilu haram wixii isagoo badan qofka sarkhaaminaya oo maskaxdiisa doorinaya isagoo yarna waa xaraan hadii khamriga xogaa yar lagu shubo oo la yiraahdo inta yar waxba ku noqon meyside ma taqaana ku dhufo waa xaraan way sharciyada islaamka maxaa yeelay hadii xogaa la badin lahaa oo lagu sarkhaami lahaa inta yar laftirkeeda dad baa ku sarkhaamaya marka khamrigu waa saas xaraan ku yahay khamaarku al-maysir luqada carabiga waxay laba macno ka timid marna waxa la yiraahdo waxay ka timid al-yusr fudaydka marna waxay ka timid al-yasaar hodantinimada iyo qaniga labada macno ee luqada carabiga asalka ka soo jeeda kelmadda leh maysir maxay tahay marka loo yiri al-yasaar hodantinimo ama qani
ama al-yusri fudayd loo yiri waxa la yiri khamaarka asalkiisu waxa weeye waa qof doonaya inuu si fudud oo sahal ku hodmo oo qani ku noqdo waa qof doonaya si sahal oo basiid inuu maalqabeen ku noqdo dad kale xoolahood wuxuu doonayaa si sahal inuu ku qaato in mataqaana intuu fariisto oo la ciyaaro qof kale lacagti ka qaato yu doonaya walidaalika shariicada islaamku way xaaraantinimaysay maxay u xaaraantinimaysay waxay u xaaraantinimaysay wax kasta oo si sahal lagu kasbado oo aan lagu dhibtoon oo lagu mashaqoon diinteenu ama way xaaraantinimaysay ama waxay ka dhigtay wax karaahiyo oo xun bay ka dhigtay beec al-gharar waa khiyaano shariicadana ma ogola xitaa waxba la kala beecinaya wax la kala iibsanaya khiyaana ku jirta wax kasta oo bakhtiyaan nasiib ah ama maxay ahayto khiyaano lagu samaynayo ama sahal wax lagu hodmayo diintu ma rabto waxay doonaysaa diintu ninka doonay inuu wax kasbado inuu xoogsado inuu dhidido inuu rafto inuu silco saxriiro marka uu shaqaysto walidaalika bangiyada aan islaamka ahayn waxay ku shaqaystaan sida khamaarka kale waa maysir isagoon qofkii bangiga joogay shaqo badan qaban iyo wuxuu doonayaa inuu hodmo oo lacag badan qaato meesha bangiga islaamka ah mabdiisu ku dhisan yahay qofka macmiilka ee zabuunka ah macaamiisha dadka rukunka macaamiisha yuu la shaqaynaya oo la rafanaya oo la silcaya la shaqaynaya markaas ama la hodmaya ama la faa'iidaya ama la khasaaraya sidaas marka bangiga islaamku shaqada oo ay xalaal u noqotay bangiyadan kale ribadana shaqada hayaan ay xaraan u noqotay maxaa yeelay bangiga ribowiga kulamana faa'iidayo kulamana khasaarayo waxa uu sameeynaya kaliya wixii adiga unba khasaaraya ama dhibaato ku dhacaysa bangigu markasta ma taqaana faa'iido ku jira marka waxay noqotay khalad bay noqotay marka shariicadana khamaarkan way xaaraantinayaan yasalunaka waxay ku su'aalayaan عن الخمر خمرة كسؤاليان يوال ميسري وحي كسؤاليان خمار كسؤاليان قولوا حاتر هذا فيهما لبضوا دحضوا وحا كسغن إثم كبير دنب وين با كسغن دنب وين يا كسغن ومنافع للناس نفع بين أيهن آذنها ومنافع نعف بأيهن للناس دتك لكن إلهي وحلي وإثمهما دنب جودا يا أكبر كوين من نفعهما واحتركوا هذا دنب جودا كوين وسؤال مهم يعني القرآن كان كريم كوحد المامية خمرة هي خمار كبا إن دم بوين كتره هي دب وين هي لر هي شدة آذنها وكترته وحكى له القرآن كشيء نعفي واحترنا آذنها إني يقول ليهين يا إلهي اللي لكن وحلو ختمي دب كودا يا كوين دفتر لر كودا هي دب كودا هي مشكلة دي وجيساني يعني إنسانك يا كبدن واحتركودا يا نعفقودا كبدن ساسا لو حرنتنمي wax kasta oo dararkiisa iyo dhibkiisa uu ka badan yahay faa'iidadiisa waxtarkiisa sharciyadan way xaaraantinimaysay laakiin quraanku waa diin la yaab la hadda iskuulada waxa lagu dhigaa reer galbeedka marka ardayda loo dhigayo macallimiinta waxa lagu tarbiyo waxa la yiraahdo al-mawduuciyya objectivism waxa la objective inuu noqdo macallinka objectivism maxay tahay macnaheedu waxa leeyahay inuu daacad u sheego shaygu siduu yahay waxa inuu daacad ka sheego inuu dhexdhexaad ka noqdo inaadan qofkaada oran waxa jeceshahay kaliya sidaad u jeceshahay oo aad u rabto inaadan u sheegin arintaas waa arin u baahan Soomaalida dadka Soomaalida in badan la baro oo loo baro manhajka Quraanka inuu sidaayay hadda qof Soomaali hadda waraysato tiraahdo wadankii ka waran hadda qoliyaha doorasho u tartamayo oo ma taqaana madaxweynayaashii Soomaaliya waxa rajaynaa insha Allah Soomaali khayr in Ilaahay ka dhigo subhanahu wa ta'ala dhibkiina ka dulqaado qof helo khayr in Ilaahay u hogaamiyo hadda tiraahdo waraysato tiraahdo yaad ugu maleynaysaa inuu ugu sito qofku isagu rabo ku sheegay kaasa ugu sito inta kale wax yihiin lama arko ومنطق نوعاس هذا ترى ماشي waxa ka jira sidoo qofku isagoo rabo jecel yahay yu ku sheegaya laakiin sida xaqiiqdu tahay kuma sheegayo laakiin manhajka quraanku wuxuu ku dhisan yahay xitaa qofka aadan rabin haduu sito waa inaad sheegto tira kaasa sito laakiin anigu lama jiro waa inaad tiraahdo kaas kale yaan rabi lahaa inuu noqdo marka mantiqa quraanka sida ku dhisan quraanku khamr ilaahay khamr ma jecela khamr ilaahay waxa xaaraantinimeynaya وحمينيا حماهدو ربا ددك inuu sheego laakiin wixii wanaaga oo nacfiyo khamri ku jira ilaahay uu sheegaya hadii kale waxa la oran lahaa khamrigu wuxuu yahay wax nacfiino kuma jiro darar iyo dhib kaliya way sidaas la oran lahaa waa mantiq marka aan saxayn cadaalad kuma dhisna cilmina kuma dhisna mantiqa cilmiga waxa uu inaad tiraahdo waxaan dhibtaan uu leeyahay
dheeftaana uu leeyahay laakiin dhibka ka badan dheefta ama aad tiraahdo dheefta ka badan dhibka sidaas manhajka cilmiga uu yahay quraanku wuxuu leeyahay khamriga nacfi baa dadka ugu jira markii la fiiriyo waxa ugu jira dhaqaale weyn hanti weyn dakhli weyn dawladda soo dhahda khamriga waxa ka soo gala lacag balaayiin ka soo gala marka waxa weeye markay khamriga ay dadka reer galbeedka ama dadkan gaalada ama muslimka ahayn khamriga waxay la tahay wax weyn oo fiican bay la tahay cilmi bulshada markay cuntada cunayaan waxyaalaha sheekada wanaajiyay ka mid tahay waxyaalaha cuntada u hagaajiyay ka mid tahay waa xaraga iyo qurux bay waxyaalo badan oo nacfi iyaga marka qurux la xaraga la sheekada u hagaajinaysa inta badan way kala xishoonay markay khamriga cabaan ba warku u furma maskaxda u furanta in badan oo kamid marka nacfi badan baa ugu jira dhaqaale laga helaya shaqa laga helaa waaba laga shaqeeyaa hadda dawladda soo dhaxaylada meel dhan leh system bulaga dukaamo khamriga kaliya lagu iibiyo intee makhluuqa ka shaqeysa marka khamriga insaanka nacfi ugu jira lur iyo dhibna uu ku jira laakiin lurka iyo dhibka yaa ka weyn nacfiga saas xaraan looga dhigay waxaan yiraahdaa marka kuwa Swedish ka maxadarooyinka u jeedinayo aan uga warramayo khamriga wasaaradda caafimaadka bulshada ee dawladda Sweden Folk Health Ministeriet maxay tahay website-keeda markaa gasho tirakoobkeeda markaa sanad walba eegto markaasaad ogaanaysaa aayadan quraanka sideeda ku jirta waxa ku jirta dhibka iyo lurka khamriga u keento bulshada reer Sweden inta qof oo dhinta inta gaadiidka ku dhimato khamriga sababay ama maandooriyuhu sababay inta dhib ay geysatay khamrigu inta maxay tahay musiibo ay u geysatay bulshada Sweden iyo dadka reer Sweden inta qof oo u dhintay khamro sanadkii way ku qoran tahay marka waxaad arkaysaa dhibka iyo lurka ay bulshada reer Sweden ku haysa khamrigu yaa ka weyn dheefta iyo nacfiga ay u tahay sidaas ayada quraanka sideedu cadeynaysa marka cilmiyan saas u cadahay meel walbana sidaas bulsho kastana waa sida ilaahay wuxuu leeyahay markuu u sheegay khamriga qul waxa tira fiihima ithmun kabirun labadooda dambi weyn baa ku sugan oo manaaficu linaasi dadkana nacfi baa ugu jira laakiin wa ithmuhuma dambigooda ya akbaru ka weyn min nafcihima sidaas ay xaraanta ku noqoto ku mutaysatay ويسألونك وحي كلوك سؤاليان ماذا ينفقون محي بحيان سؤال كلو قيم بدنوي وحي كويرا رسولك صلى الله عليه وسلم عليه نبيو وكان إله له وحل بحيو أدنا أدمانتو دنوغو هايسو حل بحيو محام بحنا ما وحان هايسو نور دنبان بحنا ما كالبر بان بحنا ما إن يربان بحنا محام بحنا مركاسا وحا اللي روحات كتر هذا واحد بحسان ويسألونك ماذا ينفقون وحي بحيان بيكو سؤاليان waxaad ku tiraahdaa waxaad bixisaan al-afwa wixii siyaada idinka ah wixii dheeraad idinka ah ilaan shariicadana waxay leedahay qof baa intuu wuxuu rabo dhan helay iyo wax ka saa'id noqdeen qofna waxa ma hayo marka diintu waxay leedahay inta saa'idka ka noqotay mid baa u baahan sidaas ilaahay ku talagalay walidaalka culimadu waxay yiraahdeen aayada quraanka iyagoo fasiray wa qadara fiha aqwataha ilaahay koonka markuu umay risqiisi oo dhan buu geliyay waxa makhluuqa saaran buu ugu talagalay laakiin makhluuqii baa wuxuu sameeynaya qaar marka risqa koonka yaala aadanaha iyo makhluuqa inta saaran nafta leh loogu talagalay ku filan laakiin qola boobaysa oo dhacaysa oo badsanaysa marka maxay noqonaysaa intii kala risqooda ciriiri galiya marka waxay noqonaysaa dulmi wadanka Mareykanka kaliya intuu consumption wax la yiraahdo intuu qooto oo istihlaaga ku sameeyo oo mataqaanaa ay dadkiisu qaaradda Afrika oo dhan ka badan qaarad dhan oo dhowr iyo 50 wadan ah yaa hal wadan kaliya wuxuu risq loogu talagalo cuna oo liqa marka miisaankii khalal baa ku dhacay weyn waxay yiraahdeen 25 boqolkiiba Mareykanka liqa 26 boqolkiina qaaradda reer Yurub reer galbeedka kaliya yaa dhowr iyo 50 yaa dunida wixii loogu talagalay risq loogu talagalay cuna adduunyada inta ka soo hadho idil 50 boqolkiiba wax ka yar ya u dhaxeeya marka khalal baa ku dhacay qola abaar u dhimanaysa qola gaajo u dhimanaysa macluul bay u go'ayaan cudur bay u dhimanayaan wax kasta ku dhacay maxay la risqi cadaalad uma qaybsana marka asaas shariicada waxay leedahay adigii waxba inta heshay baa wax saa'id ka noqdeen intii saa'idka ka noqotay cid baa u baahan cuntaada cuntay waxba ka soo haray cid baa u baahan dhaqaalahii ibaad meel dhigatay maryaa aad intaad haysatay mooyee in baa saa'id ka noqotay bixi qulil afwa wa qaacida la yaab la Soomaa
وقاعدة اللي يابله وحير الإمام الغزالي قفنا مر في قاعدة قفنا اللي يروح السائد كابحي هدي اللي أوران لها واحد هيستو بحي هدي اللي أوران لها أما أنت ما أردت عنتظر هذا عننا دتك السي دبا كتير لها دبا جديد لها لك واحد اللي يروح دارات كسائد كبحي مركزاس الشريعة اللي ويسألونك ماذا ينفقون وحي بحيان بك سؤاليا قل العفو وحتى لها السيادة داراتك بحيان كذلك سيداسا يبين الله إلهي عدينيا لكم الآيات آياتك إذين عدينيا إذنكم إلهي وحدين عدينيا آياتك آياتك علاموين ومعجزوين لعلكم تتفكرون إنا فكرتان مركز وماها سو فكر لو مباهنا في الدنيا والآخرة آخرية الدون بإلا فكر مركز وماها وإن لقى فكروا انت سكونا الله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم